gudoomiyaha dalada aan ururada dawliga hayna Soosaf Awar Cabdiraxmaan Warsame awar maanta maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday natiijadii ku meel gaarka ah ee hore ugu dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranka sidaad u aragtaa maadaama goobjoog ahayd bismillaah alxamdulillaah waxaan u arkaa si fiican waa tallaabo horumar ah waa tallaabo muxuu ahaa dimuqraadiyadda Soomaaliland wax badan ka taraysa sidaynu ka warqabnana doorashooyinku process bay soo mareen processkii dheeraa ay soo mareen maanta waxaynu joognaa tii kama dambaysta ahayd waxay ku tusaysaa inay doorashadaasi free and fair election ahayd oo si xor ah iyo xalaal ah u dhacday natiijadii ka soo baxday heer degmo ilaa heer gobol ilaa heer xarunta dhexe ilaa maayo heer maxkamadda sare waxay wada ahayd mid isku wada mid oo wax khilaaf lahayn waynu ka warqabnaa in dad badan ama muwaadiniin badan oo xildhibaana oo reer Soomaaliland oo tartamay ay soo cawdeen oo ay magaranaysaa cabashooyin u soo gudbiyeen maxkamadda sarena sidii gudoomiyaha maxkamadda sare imika sheegay koob iyo 20 cisho ama 3 week ay ku mashquulsanaayeen sidii ay u xaqiijin lahaayeen sidii ay wax uga jiraan cabashadaasi laakiin nasiib wanaag waxay noqotay in natiijadii 82 xildhibaan hordhaca ahaa ee komishanka hordhacaan soo saaray inay maanta ansixiso oo ay xalaalayso maxkamadda sare gudoomiyaha dalada aan ururada dawliga hayna Soosaf Awar Cabdiraxmaan Warsame tan iyo maalintii ay doorashadu dhacaysay laga soo bilaabo ilaa waqtigaasi daladu si joogta ah ayay ula socotay bal ka waran hawsha culus ee dadku soo qabateen runtii anagu hawl aad ballaaran soo qabanay hawsheedu waxay ahayd hawl aad u ballaaran waxaanu soo marnay process dheer ilaa wacyigelintii ilaa diiwaangelintii kaar qayb qaadashada ilaa maalintii doorashada runtii hawsha ay civil society ay soo qabteen waxay ahayd hawl aad u ballaaran marka waxaan ku oran karaa guud ahaanba stakeholders ama waxa la yiraahdo daneeyaasha doorashooyinka haddii ay tahay xisbiyada qaranka haddii ay tahay xukuumadda haddii ay tahay ururada maxalliga haddii ay tahay hay'adaha deeq-bixiyaasha dhammaantood waxaad moodaysay in si fiican la isula jaan qaadayay taasina waa ta keentay in maanta natiijada fiican ee quruxda badani ay noo soo baxdo marka qof walba dhinacii uu ka taagnaa ayuu si fiican hawshiisa uga qabtay waxa jiray dad badan oo ka socday ama dhinaca ay naga yimid beesha caalamka oo hogaaminaysan idinku bal waxaad iga warbixisaa siyaabihii kala duwanaa ee ay wargeysyada iyo waxa weeyaan telefishinada caalamiga ay uga warbixiyeen doorashada Soomaaliland iyo sida u dhacday waa su'aal fiican runtii waan ogeydo 3 wafdi oo kala kaana baa yimi oo beesha caalamka socday qola waxay ahaayeen goobjoogayaasha caalamiga ah qolana waxa ahaayeen ambassadors ama siyaasiyiinta muxuu ahaa adduunyada muxuu ambassadors ee diblomaasiyiinta qolana waxa ahaayeen qolo Afrika ka socoto South Africa hogaaminaysay dhammaantood markay wadanka yimaadeen ee arkeen sidii ay doorashadu u dhacday waxaan filayaa cid waliba way la socotay social media iyo saxaafadda adduunka wixii ay ka qoreen Soomaaliland iyo doorashada Soomaaliland inay ahayd mid geeska Afrika laga iyo dunida dhanba laga dayan karo aad iyo aad baad mahadsantahay.